kaligiis ayuu ninkani gelayaa godka, xitaa mararka qaarkood waxa uu ku maqnaadaa 2 maalmood. Rag kale ayaa hareeraha ka jiidaya xarkaha. Waa halgan ku suntan wax soo saar. Halkani waa ciidda Carabta ee Mauritania. waxaa laga helaa dahabka. These arid sands in Mauritania lies gold. خيامنا وبر وماؤنا كدر. waa Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Mauritania. halkani waa magaalo dhan oo laga qodo dahabka oo ku taala dhulka hoostiisa. waxa ay leedahay marino fara badan oo laama u kala baxa. in ka badan 1000 god oo macdanta laga qodo ayaana halkani ku yaala. qodista dahabka waxa ay bilaabatay 2016 markii nin si kama ah uu helay dahab. xilligaasi wixii ka dambeeyay dowladda Mauritania ayaa nidaam u sameysay habka dahabka loo qodo. halkan ayaana loo asteeyay inay tahay goobta ku habboon ee laga qodi kara dahabka. qofka qodaya dahabka daqiiqad kasta waa mid u dhow geerida, maadaama ay suurtagal tahay inuu ku go'doomo ama neef qabatoobo dhulka hoostiisa. godka dahabka laga qodayo oo masaafo ahaan gaaraya 48 mitir oo dherer ah. kani waa dhulka deganaanshaha iyo nabadda, dhulka malaayiinta gabyaa ay ka soo baxeen. waa Mauritania. موريتانيا أزين دولة في العالم. دولة جميلة وحلوة. مرحبا بكم في موريتانيا. بسم الله موريتاني. waa dal Carbeed oo dhaca galbeedka Afrika oo aysan dad badani aqoonin. Mauritania waa mid ka mid ah dalalka ugu deganaanshaha badan qaaradda Afrika oo inta badan aysan ka dhicin mashaakilaadka waaweyn. ku soo dhawaada dalka Mauritania. khayraadka kalluumaysigu waa mid ka mid ah waxyaabaha ay qaniga ku tahay Mauritania, maadaama ay dhoofiso noocyada kala duwan ee ugu qaalisan ee kalluunka. waxaan joognaa dekedda ugu weyn Mauritania ee magaalada Nouadhibou. eeg doomahan tirada badan. macdanta loo yaqaano iron ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan khayraadka dalka Mauritania. macdanta birta waxaa lagu qaadaa tareenkan saxaraha mara oo ah midka ugu dheer dunida ee saxaraha ku safra, kaas oo isaga kala goosha magaalada Suureed bari ilaa iyo dekedda ugu weyn Mauritania ee Nouadhibou, iyaga oo u dhoofiya dhammaan dunida macdanta phosphate-ka iyo dahabka. waxaan u soconnaa halka laga qodo dahabka si aynu u aragno dahabka. waxaan tegay magaalada Nouakchott, kadibna safar qaatay saacado ayaan uga ambabaxay magaalada Shami, halkaasi oo ah magaalo dhan oo lagu iibiyo qalabka lagu qodo dahabka. runtii waxa ay ahayd meel uu qariyay habaaska iyo boorka xad-dhaafka ah ee saxaraha. saxarahan ayaa ah mid ku fidsan dalalka Algeria, Morocco, Tunisia, Liibiya, Masar, Suudaan, Maali, Jaad ilaa iyo dalka Nigeria. waa saxaraha ugu kulul adduunka uguna ballaaran, waana kan ugu weyn dhulka. waxaan tagnay magaalada Shami, halkaasi oo dadka dahabka qoda ay ka iibsadaan qalabka ay dahabka ku qodaan. waxaana hadda joognaa magaalada Shami oo ah goobta koowaad oo dadka dahabka qodaahi ay ku hakadaan. qalabkan waxaa loo isticmaalaa in lagu qodo dahabka. halkani waa magaalada Shami ee dalka Mauritania. dahabku waxa uu ka qayb qaataa dhimista shaqo la'aanta, waxa uuna dakhli badan ku soo celiyay dhaqaalaha qaranka. dowladda ayaana sidoo kale si weyn mudnaan u siisay, iyada oo dhistay hay'ado gaar ah oo nidaamiya qodista khayraadka dahabka. sidoo kale waxa uu leeyahay sharciyo aan la dhaafi karin oo dahabka loogu talagalay, iyadoo la siiyo magdhow dadka ay waxyeelladu ka soo gaarto inta ay dahabka qodayaan. markii aan in doora joognay magaalada Shami, waxaan u safarnay meel cidlo ah oo saxara ah, halkaasi oo ay ku taalo rugta ugu weyn ee laga qodo dahabka. waa meel yaab leh oo boqolaal godad ay ka qodan yihiin, iyadoo ay ka shaqeeyaan dad aad u badan. kuwani waa dadka qoda dahabka, bal ka waran inta god ee halkani ku taala. dhammaan waa dahab. waxa ay soo saaraan dhagxaha, kadibna geeyaan halka lagu nadiifiyo si looga soo saaro dahabka. dad badan ayaa ku dhintay qodista dahabka darteed, waana mid ka mid ah shaqooyinka ugu adag
oo u baahan xirfad. Xirfad iyo xoog intaba. Rag xooggan ayaa jiidaya xarkaha lagu soo xiray weelasha ay ka buuxaan dhagxaanta dahabka ah. Tani waa arrin khatar badan oo u baahan go'aan qaadasho, sababtoo ah halkani waxaa ku yaalo godad mugdi badan oo aad u kulul. Marka laga soo tago qalabka badbaadada, waa mid khatarteeda leh. Waxaan weydiinay ninkan inta jeer uu godkan galay, waxa uuna ii sheegay qiyaastii 600 ilaa 700 oo jeer. Waxaan markaan eegi doonaa salka godka, annaga oo kaamirad siin doono mid ka mid ah dadka macdanta qoda si aan u ogaano xaqiiqada hoos ka jirta. Ninkani waxa uu ii sheegay in 24 saac gudahood mararka qaarkood ay iska joogaan godka. Godku waa 48 mitir oo dherer ahaan ah, waana mid khatartiisa wata, balse raggan waxa ay u bareereen inay halkani ka helaan quud maalmeedka qoyskooda. Waxa ay u shaqeeyaan koox iyadoo isu bedela waqtiyada shaqada. Is a rock that contains gold? They gained experience in Sudan. They have experience in Sudan. They know more about gold than we do. How was it? Hadda ninkii aan hoos u dirnay oo godka galay ayaa bannaanka u soo baxay, weliba isaga oo bad qaba. Markii la joogo halkan, shaqada waa la kala leeyahay oo rag ayaa qoda dahabka halka rag kalena ay sifeeyaan. Maadaama dalkani uu ka mid yahay dalalka Islaamka, ragga halkani jooga waa kuwa iska bixinaya waajibka Alle ee salaada. I am the muezzin of the mosque. Muezzin here among the gold mine. Saacado kadib waxaan soo gaarnay qayb kale oo dahabka lagu sifeeyo. Halkan waxaa ku yaalo warshado lagu sifeeyo dahabka. Dahabkani waa 1 garaam. Markii dahabku uu diyaar noqdo, waxaa soo qaada tareen dheereeya oo saxaraha mara, kaasi oo ugu dambeyn soo gaara magaalada Nuwandibu ee dekedda leh. Fadlan, haddii aad nala soo gaarto halkan, subscribe channelka. Waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa muuqaalo xiiso badan.